السلام عليكم أصحابي maanta waxaynu sharaxaynaa filim arday jeclaaday ardayda ugu quruxda badan iskuulka ugu dambeyntiina laga guursaday oo tigidhka arooska u keentay fadlan intaanan bilaabin ka hor haddaadan nagu soo biirin nagu soo biir mahadsanid filimku waxa uu ku bilaabanayaa macalinka oo qaraacaya Woo Yeon oo ah arday dhigta dugsiga sare oo aan shaxmo sameeyay Woo Yeon intuu xanaaqay ayuu yiri macalinka dil intaan u dilin ka hor waxa soo gashay San Hye oo ah ardayad ku cusub iskuulka oo aad u qurux badan Woo Yeon waa soo jiidatay ardaydani aad iyo aad ay ugu helay wuxuu isku dayayaa in uu sawir ka qaado sawirkaas oo uu rabo inuu xusuus ka dhigto waa uu diiday balse sawirkii waa uu ka qaaday meel kasta waa uu soo dhigay Facebook reaction badan ayaa laga soo bixiyay maalintii xigtay waxa yimaadeen iskuulka halkaas oo TK daaqada intuu soo istaagay qashqashaada iyo San Hye waa ay yaaban tahay waxa uu soo diray fariintii markay aragto way ku leerinaysaa oo farta ay u taagaysaa waxa ay u baxday banaanka waa uu soo daba kacay waraaqa ayuu dhabarka kaga dhajiyay waraaqihii ayaa ay soo gogoynaya markuu soo gogooyo way ku qabanaysaa waxaana ku oranaysaa maxaad iga daba socotaa waxay arkaysaa waraaqihii iyo jacayl iyo wax qoran yihiin waxay ku oranaysaa anuu ciyaalka kama helay intii ku qosasho balse waa intay istaagto ayaa ay indhaha saa ugu eegaysaa way u ilijabinaysaa isna dareen ayuu u qaadanayaa markaasuu is odhanayaa hadda ayay ku jeclaatay indhaha ayuu soo odhanayaa iyaduna mar labaad ayay ugu celinaysaa dhidid waaweyn ayaa kasoo baxaya isagoo oo yaaban ayuu halkiisa ku aamusayaa dhanka kale waxa ay ku tiri gidaarka ayaynu ka dhacaynaa ee qabo waa uu qabtay gidaarkii ayay kortay isna waa uu soo koray waxay yimaadeen meel halkan oo ice creamka iyo shaaha laga cabo iyagoo ice creamka iyo cabayo iska sheekaysanaya ayaa ay ku gaadhay habeen halkii ayaa ay kasoo baxeen ice creamkii waynay soo wada lugeeyeen iyagoo lugeynaya ayaa ay ku tiri maxaad markii gacanta ku haysay tus waxa uu ku yiri waxba waa inta jaabka gacanta la gashay ayaa ay kasoo saartay ise waxa uu watay sigaar waxay ku tiri waxaan maxaad u cabsaa inta qosle ayaa ay dhirbaxa kaga siisay web bila akhlaaq ayaa tan waxaan kale cabin maalintii xigtay waxa ay yimaadeen iskuulkii waxay aragtay iyagoo halkan taagtaagan dibdib ayay u socotay wayna iska dhaaftay balse waa uu fahansanaa halkii ayay gas siisay waana iska jaasjaasayeen iyagoo jaasjaasaya iyaduna waxay timi gidaarkii ay ka dhici jirtay waxa islahayd ka dhac oo halkii taag waxaana la soo dhacay kursigii waa uu qabtay markuu qabtay ayuu ku yidhi in yar baad ku badbaaday oo maanta waad dhiman lahayd halkii ayay ku wada hadleen isaga oo hadalkii halkaa kusii wata ayay ku tiri mar intaa leeg maa noqon isaguna waa uu yaabay iyaga oo halkii ku wada hadlaya waxa uu yimi mid ardayda ka mid ah oo xoog weyn waxa uu yiri dil balse waa ay ka qabatay isaguna waa uu qoslay ninkuna xanaaq dartii ayuu halkan la taagan yahay isaguna waa uu ku jeesjeesaya uu ka xaraabeysanayaa ninkii oo xanaaqsan ka bax halkaas ayuu ku yiri isaguna halkaas ayaa uu ka baxay isagoo xanaaqsan maalintii xigtay iyagoo iskuulka jooga oo cuntadii la cunayo ayaa uu arkay ardayda kamid oo lagu magacaabo Gelinam waa uu ka masayray saaxiibtinimadoodan iyo istaba socodkan fara badan waxaan u go'aansaday inuu caanihiisa dhabarka ka jaro caanihii intuu qabtay ayaa uu dhabarka ka jaray ardaydii oo dhan ayaa saa soo fiirisay ninkan waxa ku dhacay caanihii ayaa uu soo qaaday waa uu yaabay waxaanu ka biibiyay caanihii dhammaan ardaydii ayaa saa soo wada eegay oo wada dareeray iyaguna meesha ayay ka dareereen maalintii xigtay iyagoo roob dhex ordaya ayaa ay arkeen meel roobka laga galo roobkii ayay ka galeen meeshii iyagoo meeshii ku wada sheekaysanaya waxay arkeen maamulihii iskuulka maamulihiina waa uu soo daba cararay labadoodiina intay gacmaha isqabsadeen ayay roobka ku dhex ordayeen balse waxay arkeen meel kaloo roobka laga galo halkii ayay kaga dhunteen maamulihiina intuu diidayay ayuu waayey meeshii ayaa uu kasoo dabagalay waa ay sii qariyeen maamulihiina meeshii ayaa uu kasoo tegay dhanka kale waxa layna tusayaa iyagoo habeen wada socdaa oo baaskiilad ku wada socda aad ayay iskugu faraxsan yihiin ugu dambeyntii waxa uu keenay gurigooda hortooda ayay kusii wada sheekaysteen halkiina ayaa ay kusoo kala tegeen iyagu oo faraxsan ayay dhinacii ku kala dhaqaaqeen iyaduna gurigooda ayaa ay iska gashay dhanka kale waxa uu yimi xaafadooda maadaama ay maanta lambarkii ka soo qoray aad ayuu farxay sariirtayna cidi ku hurda mu moodeen walaalkii oo ku hurda ayaa uu ku boodbooday aad ayuu walaalkiina uga xumaaday
maalintii xigtay waxaa qabtay ninkii xoog weynaa isagoo kafeteriyada iska fadhiya. ninkan ardaydan oo dhan isaga ayaa ay ka dambaysaa. waxa uu ku yidhi anigu waxba kugumaan samaynayda. ninkanna inuu godob ka galay waa uu fahansan yahay. halkii ayaa uu ninkii dhirbaaxa web kaga siiyey. ardaydii ayaa isteerka qaqabta balse kama ay qaban. xoog ayaa loo dilay weli cidi kamay qaban. waxa aragtay gabadhii isagoo oo la dilayo balse waxba way u qaban kari weyday oo waa la iskugu wada tegay. halkan ayaa ay ku wada cashaynayeen habeenkii. waxa ay ka wareysatay waxa soo gaadhay. waxaanu ku yidhi waxbay may soo gaadhin. habeen kale ayaa ay wadada ku wada lugeynayeen. halkaas ay kusii socdeen magaalka. waxay aragtay gaadhigii ayaa ay iska qarisay. waxa uu ku yidhi maxaad isla qarinaysaa inamaridas magaalka galle. intii uu gaadhigu dhaafayoo dhan iyaduna waa ay sii jeeday. isaguna waa uu yaabanaa waxa ay gaadhigan iskaga qarinayso. maalintii xigtay waxa ay ku dhex hurudaa galaaska dhexdiisa iyadoo ku huruda ayay kolba dhinac isku fiirinayeen iyaga oo jacaylkoodu sii xaddhaafayo. habeenkii ayaa ay gaadhay. waxa ay soo qaateen muusig iyo biyaanooyin fara badan halkii oo ay galaaska dhexdiisa ka dhigeen in ay joogaan baar. dhammaantood halkii ayay heesa wada qaateen iyo mikrofoonno. waana waxa uu qaaday hees dilka joonadii jaahee. dhammaantoodna saasay wada xadreynayeen iyagoo xadreynaya dhammaan ardaydii oo dhanna waxay bilaabeen inay galaaska ka wada qariyaan meel kastoo iftiina iyo daaqadihii oo dhan waa ay wada gufeeyeen daaqadihii. iyaguna halkii ayay damaashaadkoodii iyo xafladooda iskaga sii wateen. iyaduna aad ayay usii farxaysay marba marka kasii dambeysa. waxa la gaadhay subaxnimadii. waxa ay tegeen xilliga badda. halkaas ay jawi ku qaadanayeen. waxa ay la soo baxday saacad yar. waa uu ku farxay. waxaanaad wadataa waxay ku tiri waa waxaan leeyay. waxay qabatay qalin. waxaanay rabtay inay gacanta kaga sawirto loof iyo wax. laakiinse waxyaabo kale ayay ku sawirtay. waxa uu siri shumi balse intaanu shumin ka hor waa uu ka soo celiyey. waxa ay fadhiyeen weli xilligii. waxa ay tegeen ugu dambeyntii galaaskii. iyagoo galaaskii fadhiya waxa uu qarqaraacayay lambarkeeda waana laga qaban waayey. galabnimadii ayay iskugu yimaadeen meel fooq ah. waxaanay ku tiri waxbaan kuu sheegayaa ii kaalay. iyadoon waxba u sheegin ayaa ay iska kacday. dhankaas ayay iska dhaqaaqday. dhankaa markay u dhaqaaqday iyadoo ninkiiba ka fogaan waxaa kusoo dhacay daaqadii ayaa dhakada kaga dhacday. halkii ayaa uu ku suuxay. dadkii ayaa kusoo cararay. dadkii markay kusoo carareen waa la qaaday waxaana la geeyey cisbitaalka ayaa ay ugu tagtay kuna soo booqatay. xaaladiisana weydiisay. waxa uu ku yidhi waan caafimaad qabaa. way shumisay. jacaylkooduna aad ayaa uu sii ballaaranayay oo uu xaddhaaf sii noqonayay. waxa ay soo xasuusteen maalmaha ay soo wada qaateen. dhanka kale waxaa layna tusay warqad saxeexan iyo sawir ku sawiran. sawirkan ku sawiranna waa ninka guursan doona sanhee. waxaa soo kacay saaxiibkeed waxaanu jimicsaday. waxaa loo soo diray sawirada saaxiibadii arooskeeda. aad ayaa uga xumaaday. waxaana halkan kasoo baxay ninka guursanaya sanhee. isaguna halkan ayaa uu ka ooyayaa. iyaduna halkaas ayay ka ooyeysaa iyadoo oon ku faraxsanin arooska. ugu dambeyntii way iska oyday oo iyadoo ooyeysa ayaa ay baarkinka iskula baxayaan labadoodu. halkii ayaa ay ku wada sheekaysanayaan maadaama ay waxaan ay dhacay ay yihiin wax aan laga filayn. ugu dambeyntii halka markay ku wada sheekaystaan waxa ay soo siinaysaa kaadhka arooska. halkiina ayaa ay kaga soo tegaysaa. maalintii xigtay waxaa layna tusayaa isagoo iskuulkii jooga oo yar murugaysan oo arday yaryar wax u sharaxaya. ardaydii yaryareed ayuu iskala ciyaarayaa wuuna iskala kaftamaya wayna ka qoslinayaan. dhammaan ardaydii oo dhan ayuu iskala xaraabaysanayaa. ugu dambeyntana waxa ay tegayaan garoonka iyagoo halkaa kubad ku ciyaaraya ayaa waxa uu soo xasuusanayaa saaxiibadiis laga guursaday in ay halkan ku wada ciyaari jireen oo ay mar walba wada joogi jireen. waxa uu soo xasuusanayaa kaadhkii ay siisay. dhanka kale waxaa bilaabmatay arooskii saaxiibadeed maadaama iyadoo arooskan ku qanacsaneyn oo loo guuriyey nin kale. arooskii halkii ayaa uu ka bilaabmay. faamilkii ninkuna aad ayay ugu faraxsan yihiin arooska oo way ciyaarayaan. iyaduna waxaanay kama qasna oo way xanaaqsan tahay. ugu dambeyntii waxa imi saaxiibkeedii hore isagoo murugaysan. filimkiina halkaas ayaa uu ku dhammaaday asxaabta qaaliga.